البوبسي على اوكي دتك السلام صدح ذا مقام شيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. magacayga waa Ilhaan Cabdiqaadir Jaamac. Ilhaan Cabdiqaadir Jaamac halkeed naga soo salaantay? waxaan idinka soo salaamay dhanka iyo qaxootiga. xagee weeye? qaxootiga Kenya. wadankaada joogtaa qaxooti matid ka cabsanin cawada wixii ka dambeey mu fi malay diyaar way mu fi malay diyaar laf nasiibkaada u qabtaa okay bal masrax cawada ku horeyso ma san filayo xamar oo dhan baa caaw iigu horeysa ma sha Allah xamar dhanaa baa cawada ku horeysa soo dhawaaw ma santii xamar oo idil ku sacbi xamar oo idil ku sacbi gacmo furan ku soo dhawaaw lugo furan indha furan dhaga furan masraxa furan ma sha Allah bal cawada maxaa noo haysaa horta meesha ka imaadi masraxa ma la fiirsadaa ha si fiican ad ma fiirsan jirtay waxaan ku yiri inaan xamar joogo waxaan ku garan karaa markii aad Jaxley ag istaajiyo okay maxaa kula taliyay qaxootiga hadda ka soo tagtay Soomaaliyeed igan inay imaadaan ama inay imaanin may inay imaadaan dalkooda hooyo u soo laabtaan dhamaantood waayo anaga waxana laga dhaadhiciyay fikrad xamar hadaa tagtid albaabka malakamuud baa suran malakalmeed meel walba waa jira ay malakalmeed meel walba waa jooga America ma lagu dhintay miya iyo Australia ma waa lagu dhintaa laakiin tan dhimashadan waxa la yiri waa kawkaasiya barf اوكي ما شاء الله ملك الميت كوقتي اذا جاء اجلها لا يستاخرون ساعه ولا يستغفر قفكي تيسي ما تكليا دمنايو ودنكاغا هوي كسو دواو عبسيا لغا غلينين خوافيا لغا غلينين ما شاء الله واي برف ما قبنو كليل ما قبنو wax aan qabno male waxaana dhan natural waaye awada maxaan oo haysaa awada waxaan idin hayaa waxyaalo badan oo hadda aanan halkan ku soo koobi karin gobol kamid ah waaba idin soo wax yar baan idin kaga taabanaya ma sha Allah waxaan horta rabaa inaan dhaho xamar ma nabad baa nabad iyo nus xoogii dalkeena ay xamar ma nabad baa xiisataan u qabay xamar ma nabad baa xubbiyo udgoonay xamar ma nabad baa xasan iyo farmaajo xageediga jirtaan haatan inta madaxtooyay inta lay ku joogan annaku haya waa ku geeyadirtid diyaar ma sha Allah waxaan hayaa maansayar oo nagu talagalay calankeena buluuga leh ma sha Allah sida aad ogtiin bakowda luuliye waxaan qabsanay xaflad qaabkii xorriyada loogu soo diray waxaana u diray rag Soomaaliyeed anaka abkoogay dheer waa ku abuuxni waa ku jirnaa ku buuxni calankeena quruxda leh cawaalow buluuga cishadaynu hananaa cadowgii caraabo waa calaamad gooni ah curadyaa naftoodii cuudkoodii hurayo raaxadu ka caago si xurriyad u curataa kuwa ciida loo dhigay raggu ciil ma qaatee cadaab buu ka doortaa gumaystuhu caddaanka ah markuu ciidda soo galay niman baa cadaadsho carradaba ka saaree cashar baana loo dhigay caadal baa la kaashaday la carrownay guushii aan caan ku noqonno iscaashaqay dadkaygii cindigiiyo beerkiyo isku furay caloosho iscafiyay dhammaantood ha yeeshee carqaladiyo cuqdad iyo qabiil baa caaganaanta keentee giddigood cashiiriyo cad xigaala weeyaan calaamooyinkaa dhacay caalamkaaba nugu nacay ciil sokeeyo weeyaan joojiya colaadaha ka cabsada ilaahay iscafiya dhammaantiin ما شاء الله ciideena hodanka macdan baa cuslayso dalaga camiran iyo cirifyada badeena cadow baa daldalaye cududiina maalo ka cishada shisheeyaha ama ayda maalo ceebtiina weeyaan ciso kuma heleysaan gobonimo mucaarida gunnimana ku caanbaxa ilaan camal xumaantani caadadeena ma aho cudur uu guumaystuhu cindigeena geliyo na curyaanshay weeyaan waxba caynka maansada yan calaacal geline dadkaygow iscaawiya calooshanka waxba caynka maansada yan calaacal gelino calooshana ka ooyine dadkaygow iscaawiya caqligiina kaashada caadilkeena tuugo nabad lagu caweeyiyo ka codsada sidii roon iscafiya dhammaantiin
إذن كان إسراع أبا يا سلامي عوضوا مشعور ثاني لون واقعسي سومالي نمدا كوكوين ودنيا دا كوكوين ما شاء الله thank you very much يا سلامي waxaan salaamayaa inta maqalkayga iyo muuqayga taqaano وكاس waxaan kaloo salaamayaa dhammaan Soomaali weyn meel kasta ay joogto inta magaca Soomaaliyeed sheegato ما شاء الله أوكي قبل ولا شينا موادينة أنت جينو أو صعبينو lama usoo kiciyaa markaa ya Mauricio Jos dadka salaam saddexda magac u sheeg السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم أفضل السلام ورحمة الله وبركاته. مقعد محمد إسماعيل آدن وحنكون مقعد عليه هاي طبعا لو مقعد بان لي هاي محمد سهل محمد بريش نوحنا هاي ويل صوماليات وبحضلك إن بريتون إن شاء الله نكون دونا متكمدة بروفيسور دلك وحوتري دونا من خاطيرت سلام dadka saddexda magac u sheeg السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سلام أنا أن سمعت إنكم سلامة هيا واحد إنكم سلامة يا سلام كشيلابة سلام كتم من قلبي ولالكين ما شاء الله سلام كتم من قلبي ويلكين ما شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام تعالى سوب اسمها جراج كيك سوبس جراج كيك سوبس جراج كاغا اوكي ما شاء الله أضيف لك صاحبك أضيف هايستا أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سومال وين ميلا جوكت دمان والسلام يا هيا مقعيوني حسين محمود حسين أولي يقانو حسين بريكاو بريكاو سعد جبي لعل ساعة ديكو قوس هناك ما نشيلي ما بيقر لك بلاو اوكي نكاو سوديبا maxaad cawada noogu soo tala gashay saaxiibkay walaalkay horta aadan ugu faraxsana ugu horeen in laacibka afka masrajakis aan caawaan la kulmo laakiin kulanka ugu horeeyay runtii muddaan raadinayay laakiin wax nasiib u yeeshin munaasabad xalfadeed arbacadii la qabtay ha isla joognay isla daahdiinaynay aadan ugu faraxsana anaa ka codsaday xitaa inaa imaado maslax furan xitaa ajakis waa dhumarto koraan kornay أنا لسؤالية أنت كور أو نكو غورغان دكان لا ديسكو أركي لها لا إله إن برامج كح أوصل تلقى لبا أريمبا إن وحربا تحير إن عند براعو ولا شيء ده لأن يجرد كوسابسن إشي كجر صح إن وحربا مادام جود وجودن بيس إن تحذا عن كهر مريو تحذا إن ودمبال لأن يراه إن طبعا أنا مسمين لكن وحسمي ويل ولا الكيجا مرنا صاحبكي يعني قفكم مركو wax sameeyno waxa haboon احترام in la sheego waa koobi gareysay laakiin koobi gareys naftirkiisa inaad sheegto markad qaar waxa jira wax iyaga leen laakiin dhaha ana sameeyay aywa buuxa markan abwaami fanaan mihi laakiin waa wiil Soomaali dhalinyarada oo dalku soo baxayo in dhambaal dhalinyarada wuxuu dhici doontaa anigoo dhalaan yar ah dhaayihii dalkan ahay gees dhiiran baan ahay maandeeq dhiseediyo wadani dhab baan ahay dhowr iyo 20 sano dhaawiciina gaari midkii dhaay baan ahay hore adinku sheeg dhakhtar baan qaraba geed dhumac weyniyo dhul barwaaq dhaxtal lagu dheefsan baan ahay dharag baan la maal ahay hayeeshee nambaaliyo fariin dhab baan wadaa dharaartii timaadaba maxayna dhigay dhibaatada dhalaankeen badankii maxaa badaa dhex dhigay maxaa u dhiibay magafaha intii dhulka joogtayna maxaa qaraxdaba dhigay maxaa dhigoodii wada qubay dhalankeeni badankii maxaa agooma ka wada dhigay maxaa barwaaqadii dhulkeenii lagu dhoofsan waayo abaarta na daba dhigay
maxaa cadaalad dhammaato midnimada dharaartii kala dhantaalsho gobol inaga dhigay ma dhal barwaaqo la'aan baan nahay ma dhibkaan naloo qoray mise qaaradaha na dhibshee oo dhal Soomaaliyeed baa dhulkan lala rabin macnaha dhalinyarada lala jeedaa si taariikhdan u dheereed dibadda u taagno miyaan dhar hor loo marin midibadan u dheerne dhalinyarada waxaan idinku hambaliyeynayaa idinku casanayaa in wadanka wax badan loo qabto waxaan intaan salaan ugu diraa dhammaan inta magacayga iyo muuqaalkay taqaano dhammaan Soomaali weyn dalka dibadda waxaan leeyahay dhalinyarada dadka dibadda u baxayo hadda waxa lagu toosaa dhankii jaamacadaha dibadda loo aadayo in ardayda baxay jaamacadaha dibadda aadayso waxaan idinku codsan lahaa marka wax soo barataan dalka la sii tagin laakiin dib loo soo laabto sida u jeedaan wadanka burbur dib ugu soo laabanaya waxaan ahay mid waa bari ku dhashay Muqdisho ku dhashay isla markaa aan ka taginba waxaan ogaa marxalado badan wadanka la soo joogay marka waxaan sii jeclahaa hadaba ilaahay ii sii qor in wadanka wax uu sii qabto marka dhalinyaro waxaan ka codsanayaa in wadanka aan wax ku wada qaban waana maasintiin waxaan si gaar ugu mahadcelinayaa maanta inta imaad u mahad leh ajakis waana maasin insha Allah welcome kale maxaan oo haysaa adigana ma u fiiriyay wala shaa kajeesad maxaan oo haysaa wax badan baa hayaa haye hal shay kamid ahaan rabnaa sheeko kaliya ma haye hal shay aan ku yiri hal shay oo waxyaabaha badan ah haysid kamid ah haye hal shay soo tuuraya haye waxyar horto insha Allah hal qiso yar inaan qax ka siiyaan rabaa haye qisadaas intaan qax ka siin waxa rabaa qof kasta inuu dhageysto dhagihiina soo siiya indhaha isa dhaan baa rabaya indhaha ii jilciyahay igu gubinaya haye okay qisadan waxay ku saabsan tahay waa qiso anagu dhan ugu saabsan anaga dhan ay ugu saabsan anagu dhan bay ugu saabsan tahay ma sha Allah صح insha Allah markii aan qisada dhameeyo baad ogaan doontaa